afgambiga ayaa waxaa soo dadajiyay dilkii 15 bishii Oktoobar sanadii 1969 loo geystay madaxweynihii Soomaaliya xilligaasi Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo lagu dilay magaalada Laascaanood. cigaal waxaa xilligii uu dilka dhacay uu ku maqnaa dalka dibadiisa wuxuuna ku sugnaa magaalada New York uga qayb galay kulankii qaramada midoobay wuxuuna isla markii uu maqlay dilka uu dib ugu soo laabtay dalka Soomaaliya. maxamed xaaji ibraahim cigaal Allah u naxariistay waxa uu markii uu dalka dib ugu soo laabmay uu bilaabay sidii loo dooran lahaa madaxweynihii bedeli lahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke. waxaa madaxdii xilligaasi ay dood dheer ka yeelatay cidii bedeli lahayd madaxweynaha la dilay waxaana ugu dambeyntii 20 bishii Oktoobar lagu heshiiyay in Xaaji Muuse Boqor uu noqdo madaxweynaha bedelaya Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke balse taasi laguma simin. gododada dhulkeenu habeenkay gilgilatee gudidii heshiise golaatoorade sare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guush nololeed. habeennimadii 21 Oktoobar sanadii 1969 ayaa waxaa talada la wareegay militarigii dalka ka jiray. ciidamadii talada qabsaday lama ogeyn xilligaasi cidda hogaaminaysay balse waxay kala cadaatay 1 bishii November 1969 oo lagu dhawaaqay xubnihii golaha sare ee kacaanka oo ka koobnaa 25 xubnood. Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre ayaa khudbadii ugu horeysay jeediyay 23 Oktoobar sanadii 1969 taasi uga hadlayay waxa ay doonayaan inay qabtaan. waxaanu doonaynaa inaanu marka ka dhigno dalkii dal sharci ku dhisan inaanu dadkii ka dhigno dad sharciga u hoggaansan oo cis iyo dhowrmo nin iyo nin ahaan ay ka dhaxayso hay'ad iyo hay'ad ahaan ay ka dhaxayso caamiyadana ay ictiqaadsan tahay in laga maarmaaya. waxaanu doonaynaa inaanu ku tilaabsanno laalooshka inaan baabi'ino waxaanu doonaynaa inaan ku tilaabsanno qarabakiilka inaan baabi'ino waxaanu doonaynaa inaan ku tilaabsanno qabiilkii xumaa inaanu baabi'ino oo laynaga soo galayay inaanu baabi'ino oo aanu marka tirtirno meeshii dadka ama aan isku kalsoonayn ama aan iimaan ka lahayn amaba adeegayaalka ajnabiga ah amaba ajnabiga laftiisu ay ka soo geli jireen inaanu awdno oo Soomaali weyna ay barbar ku raacdo. Generaal Maxamed Nuur Galaal oo kamid ahaa saraakiishii joogtay xilligaasi afgambiga ayaa waxa uu sheegay in afgambiga la qorsheynayay muddo dheer isla markaana uu waday Maxamed Siyaad Barre qudhiisa. Generaal Galaal ayaa BBC-da uga warramay sidii habeenkii afgambiga uu dhacayay ay wax u dhaceen. Maxamed Siyaadna waxa kursigiisa uga darnaaye wuu bilaabay inuu arrintaas ka shaqeeyo inqilaabka sameeyo mana qarsanayna waaba caddayd waa iska caddayd. nimankii meesha jooga un baa damanayaal ahaa oo maaragtay wax kasta loo sheegana waa aqbali waayeenoo anigu yaamahaas maalmo ka horeysa ayuu intaan isqabanay oo isku qabanay baydhabo ii bedeli laakiin anoo baydhabo inta ka magaalada xamar jooga ayuu inqilaabka habeenkaas dhacay. waxaa u dhacay dee markiisaan kuu sheegayo ciidamada la qaybqaybiyey waxaa la qabsaday telefishinkii uu qabsaday raadigaan dheeraa wuxuu qabsaday xaruntii dawladda wuxuu qabsaday maaragtay bankigii dhexe meelaha halbowlaha oo dhan baa ciidan loo baarlamaankii meeshiisii waa la qabsaday habeen markii taangiyaa la wada geeyey 3 garab habeennimo ayuu waxaasoo dhan la dhameeyey. sanadka subaxdii waxa walbaa soo baxay dadkii oo maaragtay arkeen meeshii lagu kala kacay odayaalkii oo dhanna waa xireeyey wuxuu ku xireeyey afgooyuu ku xireeyey. haddaba markii ay dawladdii kacaanka xukunka la wareegtay waxa ay ku dhaqaaqeen dhowr arrimood oo dhanka horumarinta bulshada iyo dalkaba. Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay ayaa dadka taageera waxa ay sheegeen in dawladdiisa intii ay jirtay dalka ay horumar badan ka samaysay halka kuwa dhaliila ay fikir ka duwan qabaan. qoridda afka Soomaaliga ayaa kamid ahaa waxyaabihii lagu amaanay dawladdii Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. sanadii 1972 ayaa ahayd markii ugu horeysay ee la qoro afka Soomaaliga waxaana Maxamed Siyaad Barre aaminsanaa in dadka ay afkooda hooyo ay uga cilbixi karaan dhanka waxbarashada. gunnimo cilmiya ama tacliina wax afka hooyo aan ahayn oo naga bixin kara marka taas markaan garanayna cilmigii kale waa badan yahay waana ballaaran yahay wixii lagu baran karaa waa afka hooyo mid kale lagu baran karo taasa kaaga bixin karta jahaalada amaba adoonnimada cilmiga ka saari karta. marka saadarteed
afka hooyo ayaanu dhigay waanu dhigaynaa kulligeennana waa isku ogolnahay wax kale oo Soomaaliya ay uga bixi karto aqoon darrada ama gumaysiga cilmiga ay uga bixi karto afka hooyo ma jiro. Professor Maxamed Xaaji Raabi waxa uu kamid ahaa macallimiintii kulliyadda waxbarashada la foolay qaybta luqadaha waxaana kamid ahaa sidoo kale macallimiintii ugu horeysay ee luqadda Soomaaliga ka dhigtay kulliyadaasi. markii uu kacaanku waxay ku dhaqaaqeen in Soomaaliga la qoro marka guddiday magacaabeen guddi 22 guddidaasi la yiri waxa la doonayaa inay qortaan 4 buug oo 4 buug ee ugu horeeya ee Soomaaliga laga dhigi doono dugsiyada marka iyaguna 3 kooxood bay ahaayeen koox iyagu doonayay in Laatiinka wax lagu qoro iyo koox doonayay in Qarbeedka wax lagu dhigo sidan Bagastaaniinta iyo aynu kooxdaan noqon iyo koox tiri waxa soo dhalmay galeen mid go'an sameysano markay dhameeyeen hawshoodii sanad dabadeed baa laydin qabanaya marka sanadka cidii dhamaysuunba ayaan yeelin qoladii Laatiinka sameynaysa iyagu cidba uma baahane typewriter intay qaateen bay waxay qaban kareen qabteen qoladii kacaankuna wax kala may sameeyeen qoladii Laatiinka un bay jiray qoradaas qaatay bishii Oktoobar 1927 waxyaabaha kale ee xukuumaddii kacaanka ee hogaaminaya Maxamed Siyaad Barre lagu xasuusto waxaa kamid ah dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya dagaalkaasi oo dhacay sanadii 1977 ayaa waxa ciidamada Soomaalida markii hore ay gaareen guulo la taaban karo. General Maxamed Nuur Galal oo kamid ahaa saraakiishii hogaaminaysa dagaalkii dhaxmaray Itoobiya ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu ahaa 2 qaybood oo ah qaybta jabhadaha iyo qaybtii kale ee ciidamada Soomaalida ay galeen gudaha Itoobiya. dagaalku lagu wajiyo ahaa wajiga gobonamadoonka iyo wajiga ciidamadu galeen 77 iyo 23 July ayaan ku dhifanay dhinaca koonfureed oo dhan waa goday iyo Qabridaare iyo dhagax buurba Qabridaare ma isla maalintiiba waa qabanay waa xarunta dhexe oo ahayo oo laga abaabulo oo laga daafaco dhulkan Soomaali galbeed maalinta ku xigtay maalintaas oo goday leewaata lagu soo dayuuradii xabashada iyo xasaanada nabdibay iyadana waa maalintii dambaan farsamaynay dayuuradan xilka ku wareejinay meesha korkeeda iyaguna arkayaan weerarna waa ku qaadnay maalintii 24 aan goday waan qabanay dhagax buur dib u dhacay ciidamadii Qabridaare qabtay ayaan 3 urur ka tahay ururtaangi urur ciidanka lugta iyo urur artillery oo inta qarshahan aad maqashay oo watay ninkaas si fiican baasha artilleriga uu yaqaan si fiican buu dagaalamay. waxyaabaha kale ee xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre lagu xasuusto waxaa kamid ah dagaalkii gobolada waqooyi ee imika la baxay Somaliland dagaalkaasi waxa uu u dhaxeeyay dawladdii kacaanka iyo jabhaddii SNM ee ka soo horjeeday. Ibraahim Cabdullaahi Xuseen Dhagaweyne waa taliyihii hogaaminayay ciidankii jabhadda SNM ee bishii May 1988 soo weeraray magaalada Hargeysa. Mr. Dhagaweyne ayaan weydiiyay waxa ku qasbay in hubka ay qaataan oo ay la dagaalamaan dawladdii kacaanka. waxa gaarsiiyey marka cadaalad darradu badato ee wadahadal la diido ee talo la diido ee la yidhaaho anigu unbaa taydu soconaysaa waxay taasi keenaysaa in gacanta la isula tago inna wax talaa haddii la qaadanayo may dhaceen waxaas waxa kuli markii talo la diiday ee wadahadal la diiday ee wax ummaddu leeday la diiday in laga wada hadlo Maxamed Siyaad meel cad ka kaadina xisbiga labaad lama farayo kana waa tayda ee tala kale ma ogol waxa weeyaan haddii xataa in badan soo jeestay uu diiday in uu markii wada hadal ku dayo wada qaldan uu dumay wax ka badan in la wada hadlo oo uu isaytarnimadan iyo iska daayo waxan uu ummadan u leeyahay xoog baa ugu qansan inta aan diidayna waa dhibaato badan baa jirta laga wada hadlo diyaar uma ahayn xataa dadweynaha u soo jeediyo dadkan la hadlayay macaarifada warnaya waxa dhacay dagaal lagu kala baxayo nin waliba wuxuu inuu dagaal iyo xoog ku tushado ayaa yimi isagoo hubkii ummadda haysta taangi dayuurad waxaa ummadda Soomaaliyeed dhaqaalaheedu galay casuurkii dadka jirtay aynu keligii kugu isticmaalo haddana waxaa hadda dawladda iska celiya ummadda dadka ku tushada dulmiga in la iska qaado oo kii ugu weynaa dulmi ahaa wuxuubaa lagala hortegi karaa in la iska celiyo. dawladdii kacaanka oo Soomaaliya ka talinaysay muddo 20 sano ah ayaa waxa ugu dambeyntii xukunka ka tuuray jabhado sanadii 1991